الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn ilaahay baa mahad leh halkan isu keenay inagoo dan u nimi inaan ku hadallo. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa uqaasha siyaasiyiinta, dhallinyarada, xildhibaanada, aqoon-yahanka, waxgaradka iyo cid kasta oo shirkan ka soo qayb gashay iyo ciddii soo abaabashayba aad iyo aad bay u mahadsan tahay. marlabaadka waxaan iyagana mahad u celinayaa bahda saxaafadda ee halkan diyaarka u ah inay naga gudbiso wixii aynu halkan u nimi. intaa markaan ka gudbo, shirkani waa shir saxaafadeed baynu ugu talagalnay aynu ku muujinayno fikirka iyo ra'yiga aynu ka qabno shirkadda shidaal baadhista Somalilan, gaar ahaan gobolkan Togdheer hadda ka wada howlaha oo meeshatan reer Xuseen ay ka soo saartay bayaan ay aragtideeda ku muujinaysa ay ka qabta arrimaha shidaalka ee shirkadaas ku howlan tahay. sidaa daraaddeed howlaha waxa faahfaahin doona oo u geli doona taaban doona cuqaasha iyo odayaasha shirka kan fadhiya. ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa in xafladda tan aayad quraan ay noogu furo Sheekh Maxamed Cabdi Kaahin. maanta oo halkan ay isugu yimaadeen beelaha reer Xuseen ee degan gobolkan Togdheer oo ay kaga hadli doonaan cuqaashooda iyo waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooduba arrimaha beel ahaan ka khuseeya shirkadaha macdanta iyo shidaalka baadhaya gobolka Togdheer, meelaha ama deegaanada reer Xuseen dhexdoodana ka sameeyay calaamadaha iyo tilmaamaha sarfeyga waxay shirkan beeshu kaga hadli doontaa waxa ay ka qabto, fikirka ay ka qabto ka dheer iyo ka dhowa. mar labaad halkan laba xaalo ayaan anigu kaga hadli doonaa ama laba waji ayaan kaga hadli doonaa. mar waxa weeyaan beesha ayaan ka soo jeedaa oo fikirka ay ka qabto barnaamijkaasi ayaa la qaba. barnaamijkaas ama fikirka laga qabo shirkadahaasi qoraal ayaa lagu gudbinayaa ama beeshu ku soo gudbisay uguna gudbinaysaa cid alla cid oo khuseeyo oo laga dheehan doona. marka labaad ka beesha aan ku hadlo waxaan ku hadlayaa ka mas'uuliyad ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani. waxaan leeyahay anoo ku hadlaya labadayda afba ka hore waxaan la qabaabaa ninka ay soo jeedisay beeshaydu ku dheehan doontaan qoraalka iyo hadalka ay soo jeedin doonaan cuqaasha iyo siyaasiyiintu. kayga labaad ee ah kan siyaasadeed ee gudoomiyenimo ururka xisbiga wadani, waxaan leeyahay xisbiga wadani fikirka uu hayaa waxa weeye had iyo jeeraale inuu bulshada reer Somaliland ama bulshada taageerta ee xisbigaasi ka tirsan ku taageero waxyaabaha ay ka cabanayaan ee aanay dantu ugu jirin, ama inuu tilmaamo oo aanu tilmaano waxyaabaha xaqdarrada ah ama waxyaabaha aan ku fadhiin cadaaladda iyo sinaanta toonna ama waxyaabaha aan sharciga ku qotomin ee ay xukuumadda Axmed Maxamed Silaayo iyo golayaasheedu ku soo dhex daayeen bulshooyinka reer Somaliland, sida shirkadahan gashan shaarka qaldan ee magaca shirkadana isku tilmaamaya haddana u adeegaya danta gaarka ama danta gaarka ku boobaya magaca ku boobaya khayraadkii iyo macdantii ay ummadda reer Soomaaliya wahay. waxaanu leenahay dadku way idinka indhadheer yihiin, meel aydan waxba ka arkeen bay ka arkayaan. xukuumaddu waxay ku guuldaraysatay in wixii loo igmaday ee ahayd shalay loo doortay inay ummadda u sheegto oo u bayaamiso khasaaraha ka iman doona
dhulka baaxadda leh ee la baarayo ummadda ku barakacaysa ummadda danyarta ee xoolo dhaqatada ee ay ku burburayaan baraabahoodii ceelashoodii iyo guryahoodii waxa loogu bedeli doono ama ugu bixi doono ama halkaa uga soo bixi doono ummaddu ma aha ummad indhaxiran ummaddu waxba ay arkaysaa waxaan leenahay war waa la arkaa waxa qaldanina socon maayaan kuwa sida qaldan u horkacayana waxaan leenahay ama dhuumanayana ee qaarkoodna beerka dhigayaana war waxa qarsoomayaa ma jiraan waxaan leeyahay aad iyo aad baan u taageersanahay shirkan iyo barnaamijkiisa hadalkii waxaan kusoo gabagabaynayaa wax qarsoomaya ma jiraan tanana waxa weeyaan waa mid meel dheer laga arki doono waxa weeyaan ummaddu inay wada tashato inay wax iska weydiiso in waxa u dantaha in loo sheego in waxa dandarrada ay ku jirto in marka hore laga baadho ayaa loo baahan hadalkayga waxba kusii dheerayn maayo waxaan leeyahay mar labaad waa salaamantihiin aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركا شرفت له بالشوين تكالدوان كسو قيب كشي kuwii soo qabanqaabiyey iyo kuwa markii loo sheegay soo ajiibayba waa uga mahadcelinaya ilaahay baa mahadle mahadda labaadna waxaan siinaya u naqcelinayaa qabanqaabiyayaashii shirkan inoo soo qabanqaabiyey mahadda saddexaadna innageenna soo ajiibnay baan waxaan leeyahay shirka kan dhanka hadalkaa beelaha reer xuseen danahooda kaga hadlayaan waxaanu leenahay danaha iyagaanu ka hadlayno cidna ku gafi mayno cidna ku xadgudbi mayno danaha iyagana waanu ka hadlaynaayo danaha iyaga cidna uga dhaqarsan mayno shirkadda fidhis waxaan baarayaa bagrooyan ee kootarabaanka ah ee aan caddaynin waxa ay u socoto ee waxaanay u soconin dadka u sheegaysa waxaanu leenahay waanu arkaynaa waxa aad ku soconayso waanu garanaynaa waxa aad kaa yeeli mayno shirkadee ama shirkadow ama kambaniyow ama haaladow ama dawladda fasaxdaye cidnaba ka yeeli mayno waxaan dan ahayn oo danta waddanka ahayn oo danta ummadda ahayn oo danta beelahan ahayn reer xuseen cidna ka yeeli mayno cidna ka oggolaan mayno wixii muddarro ah ee dalka loo geysanayo ee ummadda loo geysanayo ee dhaqaalaha loo geysanayo ee nolosha loo geysanayo raalli ka noqon mayno waa u socdaayey daayadu kayla qabanay waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka reerka afka beelaha reer xuseen anigoo ku hadlaya deegaamada beelaha reer xuseen waxba lagama qaban karo waxaanaan ogayna lagama qaban karo waxaanaan ogayna laga socon maayo burco marka hawd looga baxo waddada dheer sanyare ilaa xuduudka waxaanaan ogayn laga qaban maayo waddada labaad burco إلى على الدورة إلى حدود وحنا نقول لك قبل ما قلبات كبرعو ورن إلى حدود وحنا نقول لك قبل ما إذا إنها كسر وقول إذا إنها يستغرق كريني إذا إنها وحدها يستقلوا مني كاي يري مين لو حنا نقول ديجا ما لقينا تخلط عندنا
waxaan leeyahay shirkadda dadka barakicinaysa ee tiri 60 kiiloomitir deegaan weliba ha guuro ee tiri waxaan qarxinayaa dhulka oo dhulkuba waa dilaacaya iyo wixii bila jira ee tiri dhulka waxaan ka dhigayaa saxaro lama degaana waan dad iyo xooltoonna ku noolaan ma imanayso deegaamada reer Xuseen aan soo tilmaamay waxna ka qaban mayso hadalka waxaan kaga tegayaa sir ballaaran baa fadhiya rag badan baa iiga dambeeya waxaan kaga tegayaa shirkadda qaadka dadka u sheegaysaan haddaad wax doonayso inaad faa'iidaysato sax dadka u sheeg assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم وعاشا odayaasha xildhibaanada waxgaradka dhalinyarada dhammaantiin shirka ka soo qayb gashay waa salaamantii hadalka nin u hadhay oo laba yidhaahdo ee waxaa meesha yaalla baa la yidhahdaa intii hadalka meesha dhabta ahayd ee aynu isugu nimid waxaa yidhi caaqilkii iga horreeyey aniguna waa si yara u dhaadhaadaya waxaa weeye caalamku imaka caalamkii la isu gabaara gurdayn jiray caalamkii la isu gabaara gurdayn jiray waa la dhaafay caalamku is wadaalacanaya dadkii waxaa loo sheegi jiray iyo sabir jaahiligii baa la odhan jiray halkan adigoo jiir guranayaad odhan jirtay waxaan doonayaa mulcadaan doonaya adoo jiir doonaya caalamku imaka waxaa waa la dhaafay waxaanu ognahay oo aanu ka dheregsanahay baa meesha ka socda calaamadahan aad marmarinaysaa dhulkaanu degaanka u nahay meeshayadan reer Xuseen iyo inta marmarinayseenba waanu idin arkayna ama dawlad ahaada ama hay-ad ahaada aho waana idin daawanayno waa idin eegayni maanta samarka laga bilaabo taarikhdaa maanta aynu joogno ninka dambe ee aanu ku qabanno degaanka iyaga ama gaal ha ahaada ama Soomaali ha ahaadeen halkiisa ayaanu anagu wax kaa qabanayno cidda uga amar qaadan mayno degaanka iyaga dhirna la goyn maayo batroolna naloo soo saari maayo annagu batroolkayga waa haysanaa waa adhiga iyaga iyo geela iyagaa noo batroola cidda qaxinayso halkaanu degannahay ee weli hay nagu abuuray naga taraysaana ma jirto ingiriis baa naga heli waayo etoobiyaan baa naga heli waayo talyaani baa naga heli waayo faqash baa naga heli weydayo cid aanu uga gabanaynaana ma jirto ama dawlad ha ahaato ama wax kasta ha ahaato waxaanu u sheegaynaa beelaha reer Somaliland ee degaanka aanu wada leedahay ee nala degan eeriyada aanu degno haddaan nahay beelaha reer Xuseen inay nagu taageeraan baaqa inay ka soo horjeestaan boobka iyo degaan boobka la wado waxaan ku codsanaynaa iyagana sidaa iyo si lamida waxaanu u sheegaynaa ama aaraariyu soo kaxaysta ama soo kaxaysta ciidamo diyaar baanu idin nahay intii horena waa idin eegaynay anigu intaasaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu badal ku dheeran maayo waa salaamaya jirka waxa weeye maanta dalku uma baahna maanta qarsoodi iyo wax laga dhuunsado uma baahna waxaynu aragnaa inaynu saxara laynagu wado saxara in laynagu wadaaba inoo muuqata in dhulkeennii la boobayaaba inagu muuqata in magaceenni meesha laga saarayba magaceenniba meesha laga saaraybaa muuqata oo xaggay ku nool yihiin rag ku naaloonayaan ay ku naaloonayaan meelay leeyihiin oo ku nool yihiin ma jirto ayaa maanta muuqata haddaba waxaanu leenahay shirkadaha dhulka qodaya annaga wax kala qoranno mooyo waxba ma qaban karaan annaga oo wax kala qoranna oo khasaaraha igu iman doona aanu kala qoranno ma ogolin maya baanu leenahay maya baanu leenahay maya maya baan le
ninkii wax jiirayo ninkii iga dheeranayo uga dheero ninkii iga waraysa meeshaad qabanaysa aday ku jirtaa laakiin anigu waxaan leeyahay leema jiiri karayo min wadda maro laga dhigan karayo waa ii muuqataa mana baryayo mana eegayo dantaydana kama dhegaliyo kamana indhaliyo waan arkaa dantaydaasi igama lumayso nina ku xadgudbi maayo ummadda dhulka taallana waxaan leeyahay ummadda dhulka taalla marka laydin leeyahay 30 kilomitir meel walba ka guura hay-adaha iyo dawladduba dhul bay idiin ibisay kale حاجات قبلية وحبين تاسو كلي سويدين وأمة دولك كنور عندك طبعا واربال ماشى اللي يدقين أيو الشركة هن إياه وحي وطا يدقين أياه علامة نوع علامة دال كانوا كنوا لان إنه دقينه لما لو حلي حمر بان اللي نوجي بني هدي دول بان اللي نوجي بني حمر أبو حلي كانوا أنو كلنا هاي ميدان الله هاي نلوي بن مايو أو سو أقوال أو سو اليوم وضع إيج أو وضع إلاشنو لوك إنك عليه قال مله دولتنا مله إنك عليه وحيد لا ذينا ده الرجل إسكامسيو ما أنت واحد موضع ما أنت واحد لنا ورهلاجها هتلاقيك هلاجها نمشي هذا وتورن دورته وحاجة كنا ولا ذا وارمانتي تاجته ما تكهلا كديار كرو ما يكون تاجته كان سكوفري هذا كواحد فراق ما يو وحلاي واردد يو توصى بيش أو قوري سنة اللي يدير رأيه علامات هيدي لها تدري عقادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكو سلامي. هذا البلد رماي. ويا هذا كنتي أنا كلاهن وقاشي يقول رزير يقول ريبة دمي. وحنا بنو شيء دولة السيرايو يوم شركة هذا كان قضية. أنا أقول هذا يمك عايق يمك عباشة. أنا أقول هذا يمك عايق يمك عباشة ريح حسين. لا ريح حسين. دولة السيرايو يشي كذا لأنه هو القضية لك. وحنو شيء أنت هوشة ودين. أنا أركيني. أنا لو حمل المسنو ديارجرو برسمينو فكرة بالغرورين. وأنا واحد نكون قاعد. عدي لا تشيل لنا ودي بشكل حقنا نقول. أنا مقارن معي. وحوي ما أقولين إن حوق الغون قرا. ما أقولين دجاجة إن السوق الصب. ما أقولين ده كين ما الكل دي هتدور البريم. أنا كمسؤولة. dadka iyo dalka baan ka masuul hadaan maqaashanayo salaadiinta iyo odayaasha iyo wax gaarka ka masuul isku kulmiyo wuxuu yiri hadaan wadanka qabto ninka shayaan laga eriyo ana hadaan wadanka janno ka dhigay janno kama dhigin cadaab ka dhigay dib ha isugu noqdo siilaayo iyo xisbigiisu dib ha isugu noqdaan dalka waxay soo kordhiyeen iyo wax yeelan waa xisaabtamaan وحوي وانو تاجري خسارة وكتشوف وخسارة ربنا لو كتشوف وحسوا ما ترى سوق الشيء لو كبوا القرحين تذكر ديال ماشي الدنيا قبطان كانت كل بعض دينا القرحين عيو عيدين عيدين وقتي ما ده دول نسكوا كل ما لنا والسلام عليكم سلام الإسلام سلام ولكن سو عمر سلكاتي وحوي حضرنا هاي بيرها رئيسي أو إسكودن وحوي فاحي سيرو إنا وطنها كتهريبتان مياكو تلك شيء وحوي يدك أمة دايما كل التهريب بدا يسكبرين إذا لما إلا بدا سكبرتان ما دار سرا وطنها كتكتان وحانو لين والله وبالله وطلاه إلا نكون بين وطنها ما كلام أنا نود بيان ما كيلو أنا قد ديجان كيلو وين أنا قد كقبال سنة كيلو ديجان بانو ناي ديجان برعان ناي ديجان بانو نهدو وحنا دتك
nabad baan kula noolahay colaadna anagu waxaan ku ma ifinayno waxaanu leenahay oo aanu u sheegaynaa shirkadu waa been waa tuug weeye anugu waxaanay caaqilka la yidhi sayre iyo waraabeeye sarfee ka qaadeen loogu iibee baabuurta ee aniga igu shaqaysanaya magaca ee tuugga ah dama ogoli waynaa bashir waxa weeye murug iyo maal iyo nafba waanu u huraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم يا بلايد نقد يا بلايد نقد يا بهي بيل من نقد يا بهي بيل من نقد يا غير ما غير قبل مستقل كان نقد يا من مفرط ما ولا كان نقد يا مسلمين تمساحة نحن يا قال غير الكل تاك السلام عليكم تاك الدبو ركي هوريي waxaan ku daro ma garanayo tii ragii horeeyaan ku raacsana intii ragayagii horeeyay ayaanu ku raacsanahay shaquna waa arrinkeen iyo aqbalkeen ninku hadduu xaajada keeno dadka kale hadalkiisu waxba ma badna waa ku sallimaynaa waa ogolahay hadduu wax ka tagana waa lagu daraa walaalayaal waxba kama tegin ugaasheenna iyo olayaasheenna kii hadlayba halkaynu doonayno ka hadalnay waxba kamuu tegin annana waanu ku raacnay sidaasay naga tahay waxba kordhin maayo assalaamu calaykum siyaasiin uqaal culamaaudiin dhalinyaro شكرا يسوي ولدي والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدي هذا الكل هنا وراء لون بيجوالي وحن كبريا يدلك ولا كلنا يضرب صبحي دارنا ولا كلنا يدوي ضبط دنيا يدلك بيوم اللي وحبوه حكومة بس سورة كذا يسوي دجال كيس اللي يهون بالغ خبريا يقبل الترقلين هاي بس يرقلين وحاولنا لها ده توسبوا يدقى مدى عيالين بيالها غير حسين كتها هذا عيالي كتها قدام توكسات هذا عما كم اسم تومي كريسي من وحاولنا يدقوينها كري اللي دقاء كري بيرها كله الدل كله غريبة والدل كله هو المسود الدنيا يدل برا ولا غريبة الله توصل أنا لقوه يدل كله على القمر كذا هذا كتربانك بيرتا وحال تشيل كل شيء غيره دولة يدل كله تركيا يبون والمسود يدل كيه ولا إلى شرنا وحال له مرق دينا إنه خيرات يوحي أبها الله سوينا هداي سرير بكيين لكن وحنا تلمان ولا يسلم هاي وخبر له هي اللي قلت لك لما نقول له والله هاي وحبك قبل ما ينقل والسلام عليكم ورحمة الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هل كان وحكى سلام يا شروينا قيمة هي قاية على سبيل مالك وعن سلام يا عدي شركة سوق من قبل وعن سلام يا بعض الصحافة وعن سلام يا عقاش سيدة أو أنا كوكر صورنا هاي موضوع هاي نوجهات أما سيدا هاي بيشك واقعيا anigoo ku hadlaya afka bulshada waxaanu cuqaasha ku raacsanay nabadoonnada ku raacsanay samadoonnada ku raacsanay waxgaradkayaga ku raacsanay ku diyaar garoobaynaa wax alaale waxaa marayna siya waxa weeye dalka waa la wada leeyahay waa la kala leeyahay waxa weeye inay beel la dul saaraan ama ay boobtaa macquul noqon mayso وعوي اللي كليه أو مراد لا عم فوجر يستين وطلق بور عليكم نقول مين
وحوي سيدي بوصاص كل هذا الشدال ما نقضي يا ملك وحوي مركي لح بلود لقودنا هي وحين لقلب حي مع البورد بابي لقانو لقى يقول وما بعدين يصيروا كنا نقول هذا ميدا كنت كوتشر ميدا كي صار لو دادي بالي وحوي جيلنا يارجينا يحورنا يما فعنا بصول نوها marka la leeyahay deegaan walba 60 kiiloomitir ama 70 ha laga guuro waan xagee loo guuray masalliga Mareykanka ee dawladda Soomaaliya inoo kaleysay waa su'aal ma miir baa la yidhi xagee la yidhi waxa weeye dadku inay dantooda gartaan oo ay ka hadlaan waa laga maarmaan colaad iyo dhibaato ma horseedayna anagu dalka u horseedmayna dawladda xukuumadda u horseedmayna weerarayna bay laakiin wixii danaha iyaga iyo xoolaha iyaga dhibaato ku noqonay marna qaadan mayno sida ay uqaaso baadeen baan la qaadanay raalaanu kaga nahay waa ku daba taaganay ciidan kasta taliyu leey taliyaha beelo waa uqaasa wasi allaale sida ay noo gooyaan baan raali ku nahay qaadanay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shidaalka gobolka Togdheer sida aad wada ogtihiin waxa sanadihii ugu dambeeyay lagu guda jiray hawlo sahamin shidaal iyo macdan baaris isugu jira oo laga waday Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer hawlaha sahaminta ahi waxay soo jiiteen indhaha bulshada reer Soomaaliland si gaarana waxay u taabteen bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyadoo dadku ka rajaynayaan filashooyin kala duwan oo u badan kuwa togan inta badan dadku waxay isha ku hayeen oo ay ka dursugayeen hadba xaaladdu sida ay noqoto iyadoo marnaba aanay niyada laga saarin in hawshan sahaminta ahi si taban u saameyn karto dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada hawshu ka socoto haddaba waxa deegaanka beesha reer Xuseen degto oo ah deegaan aad u ballaaran oo ka tirsan degmada Burco ee gobolka Togdheer sida Togdheer Banka Arooriyaad Ballida Qoolal iyo Gubado ayaa waxa uu ka mid noqday deegaanada la sahamiyay lagana gacan galiyay si loo ogaado khayraadka dabiiciga ah ee ku duugan iyadoo ay ahayd in laga wada tashado waxna la iska weydiiyo ayaa wax aan la aqbali karin in dad lagu magacaabay shirkado oo gashan shaad qabiil una soo tafaxaytay boobka iyo dhaca khayraadka waddanka ayna horkacayaan hormuudna isaga dhigayaan kaabo qabiilo leh wax walba annaga ayaa dhammaynayna iyadoo haddaba si tuugo ah u tageen deegaanada beeshu degto dhigayaanna calaamado kala duwan waxa ayaan darro noqotay in xukuumadda oo ahayd mas-uulkii ummaddu u igmatay ilaalinta khayraadka waddanka iyo u kala xaqsooridda bulshada reer Soomaaliland haba yaraatee doorkeedii meesha ka maqnaatay waxa kaliya ee laga arkaana ay tahay askar raxan u socota oo marka deegaanadaas laguna cabsi gelinayo bulshada danyarta ah ee xoolo dhaqatada ah ee ku fidsan deegaanadaas sidaa daraaddeed waxaan la socodsiinaynaa ashkhaasta huwan shaarka qaldan ee sita magaca shirkadeed kuna foogan mashruucan lagu magac daray sahaminta shidaalka ilaa haddana aan la ogayn ujeeddada rasmiga ah ee ay ka leeyihiin hawshan ay wadaan waxaannu ka soo saarnay qodobadan in aan la sahamin karin lana baari karin hawlna laga fuli karin deegaanada ay degto beesha reer Xuseen ee aan kor ku xusnay in ilaa hadda aan la ogayn lana caddayn
daraasadna laga soo bandhigin khasaaraha iyo dhibaatada uu keeni karo mashruucani suurtagalna aanay ahayn in lagu khamaaro nolosha jiritaanka iyo deganaanshaha boqolaal kun oo qof oo muwaadiniin ah in qodobka saddexaad in aan xukuumadda somalilan iyo golayaashu aanay ilaa hadda wax damaanad ah ku wajahan dhibta khasaaraha iyo barakaca laga dhaxli karo mashruucan aanay keenin gabeenna mas-uuliyaddii ka saarnayd dalka iyo dadka in haddii arrintaa si deg deg ah loo joojin waayo ay keeni doonto cawaaqib xumo intaa ka badan mas-uuliyaddeedana ay qaadi doonto cidda faraha kula jirta xubnaha qodobadan soo saaray